Manchester United ayaa marti gelinaysa kooxda horyaalka Spain hogaaminaysa ee Barcelona ciyaar caawa ka dhacaysa garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester. Waa lugta koowaad ee quarter-finalaha koobka horyaalada Yurub. Ciyaartani waxay ka dhigan tahay mid ugu weyn wareegga 8 ee koobka horyaalada Yurub ee ciyaareedkan. Manchester United waxay wajahaysaa mid ka mid ah kooxaha ugu quwadda weyn maanta adduunyada, waana Barcelona oo gacanteeda midig loo yaqaan Lionel Messi. Waa ciyaar weyn marka la eego koobka u diiwaan gashan labada koox iyo taariikhda ay adduunyada ku leeyihiin. Laakiin marka la fiiriyo liiska ciyaartooyda ay maanta haystaan, Manchester United waxay ka dhigan tahay koox meel dhexaad ah. Ole Gunnar Solskjaer ayaa maraya tijaabadiisii ugu adkeed tan iyo markii laga dhigay macalinka joogtada ah ee Manchester United dabayaaqadii bishii la soo dhaafay. Maalmo adag ayuu wajahayay tan iyo markii uu natiijo fiican kala soo laabtay Paris Saint-Germain lugtii labaad ee wareegga 16 ee koobka horyaalada Yurub. Waxaana ay taageerayaasha isha ku hayaan sida uu caawa u maareeyo kooxdiisa iyo waxa uu kala kulmi doono cimaaliqada Spain. Gerard Piqué ayaa ku soo laabanaya Old Trafford waxaana uu ku tilmaamay halkii uu ku qaangaaray. Isagoo hadlayay ciyaarta kahor wuxuu wariyaasha u sheegay in Manchester United ay tahay koox aan la garan karin maalinta ay ka adkaanayso. Waxa uu sheegay in Barcelona aanay marna quursan doonin Manchester oo aanay ula ciyaari doonin sida koox fudud. Isagoo sheegay inay xasuus ugu filan tahay soo laabashadii ay sameeyeen kulankii Paris Saint-Germain ee bishii la soo dhaafay. Manchester United waxay rajo weyn ka qabtaa inay dib u heli doonto ciyaaryahankeeda la yiraahdo Marcus Rashford kulanka ay caawa wajahaysa Barcelona. Rush ayaa sheegay kulankii ugu dambeeyay ee Premier League ay kooxdiisu ciyaartay markaas oo ay 2 gool iyo gool daraa kala kulmeen Wolves. Weeraryahanka Ingiriiska oo dhaawac ahaa ayaa la filayaa inuu kulankan ciyaaro. Waxaan ku rajo weynahay inuu diyaar noqon doono ayaa laga soo xigtay tababare Ole Gunnar Solskjaer oo ka hadlayay xaaladda Marcus. Nemanja Matic wuxuu ahaa bedel aan la isticmaalin kulankii Manchester United iyo Wolves. Dhaawac ayuu qabay, laakiin tababare Solskjaer waxa uu rajaynayaa in ciyaaryahanka Serbiyaanka uu diyaar noqon karo kulanka caawa. Tababare Solskjaer oo maalmihii la soo dhaafay oo xaalkiisu liitay ayaa la weydiiyey sida ay kooxdiisu u maareyn doonto halista weeraryahanka Argentina iyo naadiga Barcelona Lionel Messi kaas oo 43 gool dhaliyay 40 kulan oo ciyaaray xilli ciyaareedkan. Ole waxa uu sheegay in Manchester ay wajahday Juventus oo haysata Cristiano Ronaldo, PSG oo haysata Kylian Mbappe iyo Chelsea oo haysata Eden Hazard. Sidaa darteed uu rajeynayay in daafacyadiisu ay maareyn doonaan halista Suarez iyo Messi. Laacibkii hore ee Barcelona iyo Manchester Zlatan Ibrahimovic oo wax laga weydiiyay kulanka ayaa ku qeexay ciyaar u dhaxaysa Paul Pogba iyo Lionel Messi. Wuxuu labada ninba ku qeexay kuwa si fiican u fasiri kara kulanka wax badanna ku siyaadi kara naadiyada ay ka tirsan yihiin. Waa kulankii ugu horeeyay ee dhexmara Barcelona iyo Manchester United tan iyo 2011 finaalihii koobka horyaalada Yurub markaas oo Barcelona ay 3 gool iyo gool ku adkaatay ciyaar ka dhacday garoonka Wembley. Barcelona weligeed kuma soo adkaanin garoonka Old Trafford kulan ka tirsan tartamada Yurub. 2 jeer waa laga soo adkaaday, 2 jeerna barbardhac ayay soo qaateen, 4 jeer oo ay tageen garoonka Old Trafford. Markii ugu dambeysay oo labadan koox isku arkaan garoonka Old Trafford waxay ahayd xilli ciyaareedkii 2007-2008 markaas oo Barcelona lugtii labaad looga adkaaday 1-0 kubad caaqiba lahayd oo uu dhaliyay laacibkii hore ee Manchester Paul Scholes. Waa markii 17aad oo ay Barcelona ka soo muuqanayso caawa darajada quarter-finalaha ee koobka horyaalada Yurub. 12 jeer oo xiriir ayaa ku jirta waxaana ay rikoorkaasi la wadaagaan clubka la yiraahdo Bayern Munich. Manchester United ayaa 2 jeer ku qasaartay ama looga adkaaday gurigeeda tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan waxaana ka adkaaday Juventus iyo PSG. Markii ugu dambeysay oo 3 jeer hal xilli ciyaareed looga adkaaday gurigooda kulamada koobka horyaalada Yurub waxa ay ahayd xilli ciyaareedkii 1996 iyo 97 markaas oo tababaraha hadda Ole Gunnar Solskjaer uu ka mid ahaa ciyaartooydii goob jooga oo ay 3 gool daro. Saadaasha laga dhiibtay kulankan ayaa u badan in Barcelona ay garaaci doonto Manchester United inkastoo qaar saxafiyiinta ka mid ah ay aaminsan yihiin in kulanku uu noqon karo si ka duwan sida loo saadaalinayo. Lionel Messi ayaa 22 gool Champions League kaga dhaliyay kooxaha Ingiriiska 30 jeer oo ku hortagay mana jiro ciyaaryahan ka badan taariikhda tartanka oo sidaas ku sameeyay kooxaha Ingiriiska. Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa la siiyay talooyin badan oo ay ka mid ahayd in ciyaarta caawa uusan qaab difaaceed ku soo galin iyo sidoo kale inuu xornimo siiyay ciyaartooydiisa iyadoo dadka aragtidaasi qaba ay tusaale u soo qaadanayaan lugtii labaad ciyaartii Manchester iyo Paris Saint-Germain markaas oo Solskjaer iyo kooxdiisu ay si xornimo leh u ciyaareen. Garsooraha Talyaaniga ee Gianluca Roggi ayaa dhexdhexaadinaya ciyaarta ka dhacaysa garoonka Old Trafford caawa waxaana kulankan bariga Afrika laga daawan doonaa 10 habeenimo ama 4 saac. Fadlan nala wadaag aragtidaada ku aadan kulanka Barcelona iyo Manchester United.